ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhawaan maamulka sare ee Puntland ka dalbaday inay ku soo wareejiyaan maxaabiis burcadnimo ugu xirnaa dhowr sano magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Xildhibaanada ayaa kulamo gooni ah la qaatay xildhibaano ka tirsan Puntland, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Garaash, iyagoona ka dalbanayay in ragga maxaabiista burcadnimada u xiran loo sii daayo. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowlad goboleedka Puntland ay shuruudo ku sii deynta maxaabiista ku xiran Garowe ee ka soo jeeda dhanka Galmudug, iyagoona sheegay in ragga lagu sii deyn karo kaliya hal arrin. Puntland ayaa marka hore dhigeeda Galmudug u sheegtay in raggaasi burcadnimada ay markii hore ku soo wareejisay Cycles oo halkaasi lagu soo maxkamadeeyay, ayna Puntland kula heshiisay in raggaasi lagu sii deyn karo oo kaliya markii ay xukunkooda dhameystaan. Sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ayaa u sheegtay Galmudug in suurtagal ay noqon karto in ragga burcadnimada u xiran loo sii daayo markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbatay in Puntland ay ku soo wareejiso raggaasi. Dalabkaasi ayaa ka dambeeyay kadib markii xildhibaanadii ka socday Galmudug ay dhankooda Puntland ka codsadeen in maxaabiista lagu wareejiyo dowladda federaalka Soomaaliya, walow Puntland ee arrintaasi shuruudo ku xirtay.